Kulan ciyaareedkii ka tirsanaa horyaalka kubadda kolayga ee dalkeena Soomaaliya ayaa maanta markaasi wada ciyaaray kooxaha kubadda kolayga ee Horseed iyo sidoo kale kooxda kubadda kolayga ee lagu magacaabo Somali Fruit. Kulankan ayaa waxa uu ahaa kulankii lixaad ee horyaalka kubadda kolayga. Labada kooxood ayaa waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad u sareysay, waxaa mar walba ay markaa gacan sareysay kooxda kubadda kolayga ee Horseed iyaga oo markaasi la yimid 85, halka kooxda kubadda kolayga ee markaasi kooxda lagu magacaabo Somali Fruit ay iyagana iskoorkooda ay la yimaadeen 44, waxaana sidaasi guusha ku raacday kooxda Horseed ee caawiye maalin. Kooxda Horseed ayaa markaa waxa ay ciyaartay 2 kulan oo xiriir ah, labadaasi kulanna waa ay guuleysatay, waxa ayna markaasi hadda ka daba dhowdahay kooxda markaasi horyaalka difaacaneysa ee Gift oo iyadana markaa 2 kulan oo rasmi ah ay soo adkaatay, waxaana kulankaasi uu yahay mid aad u xiiso badan oo ka mid ah kulamada ugu adag ee markaasi la ciyaarayo. Halka kooxda Somali Fruit ay markaasi iyadana kulamadii ay soo ciyaartay dhammaan laga soo adkaaday, ayaa waxa ay markaasi wajahaysaa marxalad aad u adag oo qayb weyn ayay markaasi ka tahay marka laga eego tartankani. Haddii aan eegno kulanka maalinta berita, waxaa la ciyaari doonaa kulan ka tirsan horyaalka kubadda kolayga ee dalkeena Soomaaliya. Dhanka gabdhaha waxaa ciyaari doona kooxda lagu magacaabo Women Sports iyo sidoo kale kooxda Horseed ee caawiye maalin. Gabdhahooda ayaa berito waxa ay ku balansan yihiin garoonka kubadda kolayga ee Wish. Ciyaartaas ayaa waxa ay dhici doontaa 9 galabnimo, waxaana uu yahay kulankii koowaad ee labada kooxood ay ciyaarayaan, sidoo kalena waa ciyaarta labaad ee la ciyaarayo horyaalka kubadda kolayga ee dalkeena Soomaaliya ee gabdhaha. Sanadkan waxaa difaacanaya kooxda gabdhaha Hagan oo shalay guul weyn ka gaareen dhigooda kooxda kubadda kolayga ee Somali